waatahay mudane madaxweyne aad baan kaga mahad celinaynaa wareysiga maanta oo kale 23 Agosto 2018 ayaad xalka talada deegaanka qabata waxay ka dhigan tahay muddo 3 sano ah ayaa ku buuxsantay maanta waxyaabaha ama wax qabadyada dhinaca horumarka ugu waaweyn xukuumadda muddada 3 sano ah ay qabatay maxaa kamid ah waad maasantahay Abdisaaq waa runta maanta waxaan u buuxsamay 3 sanadood intii isbedelka deegaanka uu ka dhacay hogaaminta isbedelku ay mas'uuliyadda la wareegtay muddadaas runtii waxyaalo fara badan ayaa noo qabsoomay waxyaalo fara badan oo caqabado nagu hor yimid oo wax badan noo qabsoomi lahaa aan isleenahay inay qabsoomin bay sababeena way jiraan laakiin waxaan xooga saari doonaa in wax aan qabanay aan soo bandhigo iyadoo xalaal tahay in doodaha la xiriira maxaa la qabtay maxaa la qaban maxaa dhiman maxaan maaragtay dhinayn ay shacabku madax banaan yihiin aadna aan ugu faraxsanahay in ay helaan shacabkeenu fursad ay kaga doodaan arrimaha noocaas la mid ah si xor ah haddana annaga dhankanaga maadaama aan gudihii ku jirnay wixii aan isleenahay waxaas qabsoomay inaan soo dhigno wixii aan isleenahay waa qabyo oo in la qabtay ahayd ama qorshayaal noo yaala ay ka mid yihiin sideeda inaan soo bandhigno sida la socoto 2018 bishii August markii halkan aan imaanay isbedel ka dhacay deegaankeena wuxuu ku yimid si aan nabad ahayn dhibaato waa ka dhacday meeshii nidaamkii waa burburay xisbigii talada hayay baa isku dhaxyaacay marka waxay noqotay in si dhaqso ah arrimihii dhan dib loogu xalliyo waxyaalo ugu horeysay markii aan nimid aan qabanay waxaa ka mid ahaa muddo 10 sano ka badan ama ilaa 20 sano 10 sano u dambeysay la oran karo dhabahan waxa weerar uu ku socday astaamaha Soomaalinimada waxa loo aaneeyo iyo in shacabka Soomaalida wixii ay iyagu arki jireen inay metelaan astaamihii lagala dagaalamo iyadoo la leeyahay waxa Itoobiya ku noqon kartaan marka ka carartaan wixii aad sheegan jirteen shaqooyinka ugu horeeyay la qabto waxay ahayd oo wax sahlan aan ahayn oo runtii hadda la iska iloobay laakiin wax weyn aha marka magacii deegaanka in dib loo saxo oo sidii dastuurkii ugu horeeyay ku qoray laga dhigo calankii deegaanka in dib loo soo celiyo oo shacabka badankiisu ay isku waafaqsan yihiin in matalaad ahaan calankaasi uu ahaa mid muujinaya Soomaalinimo astaama in heestii calanka laftigeeda oo tii ugu horeysay la ansixiyay dhowr jeer kuna noqonaysa eriga Soomaalinimo inta laga cararay tu kale oo ka hadlayso qoomiyadii iyo waxyaalo markaa loo arkay in la iskaga gadayo nidaamkii markaa jiray in la bedelo oo narration ahaan fikir ahaan aragti Soomaaliyeed shacabku inay qaataan inay ka hor imanaynin inay ahaadaan dad Itoobiyaan oo xaqooda ku raadsada dalka gudihiisa fikir siyaasadeed noocaas in la abuuro taasoo horseeday furfuraansho ballaaran oo ilaa iyo haddaba aad aragto ganacsi ahaan dhaqaale ahaan isdhexgal ballaaran inuu keenay innaga iyo dadka kale walaalaha aan ahayn ee geeska Afrika ku wada nooleen Soomaalida taas waxaan isleeyahay waa isbedel ballaaran oo aan la xaqiri karin oo keenay xitaa in meelaha qaarkood maadaama aan tabar lahayn anagu oo dhaamnay kuwa kale walaalaha anaga inaan u gurmano oo nabadayno dad iyo Soomaaliyeed oo isku dhacay oo xadka ka shisheeya in loo gurmado heerka ilaa heerka in lagu dhiirado keentay runtii talabaad ee wax qabadkii waa dhanka nabadgelyada saad ogtahay markaan imaanaynay waxa aad loo hadalhayay in ciidankii gaarka ah ee deegaanku saraakiishii xukunta ay baxsatay in burbur qarka u saaran yahay aragtiyo fara badan oo laga qabay ciidanka laftigiisu way jireen marka oo laga yaabo qaarkood annagaba inaan xilligii aan diidanayn nidaamkii meesha ka jiray aan ku hadli jirnay oo ahaa in ciidankani tacadiyo oo dadka u geysanayo taayoo laga duulayo ra'yiga dadku badankiisu jahwareer baa ku jiray laakiin muddo kooban gudahood waxa lagu guuleystay in ciidankii dib loo yagleelo command structure-kiisi ama taliskiisi la saxo qaab dhismeedkiisi dib loo hagaajiyo afkaarihii uu ku hawlgelayay wax laga bedelo oo tababaro la geliyo oo ciidan u hoggaansama sharciga iyo dastuurka shacabkan uu ku dhex jirana shacabkiisa inuu yahay la fahansiiyo shaqo ballaaran baa laga qabtay waxaa kaloo la sameeyay ciidankii in la tayeeyay oo gawaari qalab
iyo gawaadhi iyo isgaarsiin far badan lagu soo kordhiyey tira ahaanna in laba laab ama saddex laab intii ay ahaayeen in lamida inta lagu daray maanta aan odhan karno waxaan haysanaa ciidan tababar ka wanaagsan kii hore haysta qalab ka wanaagsan haysta daryeelkii hore ka wanaagsan haysta isla markaana ah ciidan aan halis ku ahayn shacabkiisa shacabkiisu meel walba uu joogo uu codsanayo in loo keeno iyadoo ciidankaas awal hore uu ka howlgeli jiray gobollo kooban oo meelaha kale looga arki jiray ciidan qabiil in ciidanku uu noqdo ciidan qaran oo deegaanka Soomaalida oo dhan shacabka deegaanka oo dhan u dhaxeeya kana matalaadaasina ay ka dhex muuqato waa arrimaha lagu guuleystay ka mid tahay waxaa kaloo dib loo dhisay biliiski caadiga ah oo hadda ka hor la burburiyey walow dhismihiisu kuliyadda tababarka oo hadda tababarkii u horeysay bixisay dufadii u horeysay inay sii wado ay tahay haddana la qorsheynayo in biliis caadi ah oo dembi baariyaal iyo dembi ka hortagayaal iyo adeegayaal iyo traffic ah in la sameeyo iyadana waxba laga qabtay iyadoo ilaa ciidan ku dhawaada isbedel kadib la tababaray oo qaarkood loo tababaray ka hortagga rabshadaha si haddii ay rabshado u dhacaan si casri ah looga hortago oo aan u dhicin rasaas la isku rido waxaa kaloo dib tababar loogu furay ciidamo 10,000 kun ka badan oo maleeshiya ah oo hadda ka hor si habqana loo tirsan jiray laakiin hal meel inta la soo keenay tababar iyo jahayn aan la siinin isla markaana mushaaraadkoodii kor loo qaaday waxa inta dhex socota in adkeynta hay'adaha nabadgelyada ay qayb ka ahayd in mushaharkooda la kordhiyo ciidanka gaarka iyo biliiskaba oo muxuu ahaayay taasna ay qayb ka tahay maalgashiga ballaaran maalgelinta ballaaran la geliyay adkeynta hay'adaha nabadgelyada iyadoo hadda laga fikirayo in guriyo loo dhiso saraakiisha in isbitaalkii ciidanka la sameeyo in muxuu ahaayay isgaarsiin casri ah iyo xafiisyo u gaar ah oo ay ku qabsadaan shirarkooda in loo sameeyo marka dhinacaas wax weyn baa laga qabtay waxaa kaloo ogtahay 3 sano ka hor in arrinta ugu weyn ee deegaankeena lagaga hadli jiray dal ahaan iyo internationally-ba ay ahayd arrinta xuquuqda insaanka oo deegaankeenu xuquuqda insaan report kasta oo la soo saaro ama Amnesty International ama Human Rights Watch ay soo saaraan uu ahaa dalka Ethiopia sida ugu ba'an lagu soo hadalqaado waxaan oran karnaa 3 sano gudahood arrimahaas way soo afjarmeen haddana maanta deegaankeenu waxa uu model u yahay furfuraan siyaasadeed iyo ixtiraamka xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qowlka oo maaragtay runtii wax badan inuu ka hagaageen shacabku qirayaan oo taas muxaafid iyo mucaaradba aan la isku diidanayn waxa iyaduna wax laga qabtay dhanka siyaasadda ballaarinta fagaraha siyaasadda iyadoo maanta ugu yaraan ilaa iyo 5 urur oo xisbiyo mucaarad ay ka dhaqaaqan deegaanka inkastoo qaarkood ay yihiin kuwo xilliga doorashooyinka uu la arko ama xilliga doorashooyinka uu jiri karo oo aan lahayn qaab dhismeed ballaaran oo sii wadi kara haddana 5 afkaarooda kala duwan inay jirto deegaankeena iyaduna waa maaragtay waxyaalaha ballaarinta siyaasadda ballaarinta fagaraha siyaasadda waxa qayb ka ah iyaduna in ururkii ONLF oo ahaa urur ku halgamayay halgan hubaysan inuu isna qaato inuu soo xaroodo oo qaab nabadgelyo ah uu ku dhaqdhaqaaqo isagoo ururka dhexdiisina shaqo badan laga qabtay in la isfahmo oo qayb badan oo kamid ah ururkii maanta ay ku qaracsan tahay in la iskaashado oo siyaasad iskaashi ah oo xukuumadda iyo xisbiyaduba deegaankii inay yeeshaan ay ku qanacsan yihiin qaybo kamidina ay door bideen inay tartan siyaasadeed la galaan xukuumadda sidaad idinkuba aad ka warhaysaan marka dhanka siyaasadda runtii deegaan tartan siyaasadeed ka jiro furfuraan siyaasadeed ka jirto inuu noqdo waa laga shaqeeyey heer deegaanna in ismaamul Soomaaliyeed oo sidii hadda ka hor arki jiray ciidamo iyo sirdoon iyo marajaa wax la yiraahdo iyo dadka nafta u keena ama mas'uuliyad qabashaduba ay ku xidhnaato muxuu ahaayay waxyaalo aan ahayn dadka miiska fadhiya oo ciidiyo kale ay magacaabayso in wixii laga baxo oo ismaamul dhaba aan u gudubno waa lagu guuleystaa oo karnaa dhinaca kale waxa kale oo lagu guuleystay in heer qaran la sameeyo cod midaysan oo Soomaaliyeed oo maanta xisbiga barwaaqo ee ka tirsannahay anagoo kala socon aanan tegin cod Soomaaliyeed oo midaysan miiskaan la tagno taasoo runtii ixtiraam badan nagu soo kordhisay heer qaran in aragtida Soomaaliya laga qabo ay wax iska bedesho
markhaatina ay ka tahay mansabada maanta Soomaalida lagu aaminayo iyo kuwa aan isleenahay dhawaan waa loo dhiibi doonaa dhanka horumarka oo in badan laga hadlay ku dheeraan maayo laakiin isbedel ballaaran baa laga sameeyey sektarada muhiimka ah adeega asaasiga sida waxbarashada caafimaadka biyaha jidadka muxuu ahaayey beeraha runtii waxaan oran karnaa isbedel ballaaran oo la taaban karo ayaa laga sameeyey tira ahaan hadda ka hor maadaama oo aan in badan ku celcelinay matalan ba iskuulaadka kale in iskuulaad ilaa 80 gaariyo dugsiyo sare ah boarding school ilaa 11 in la sameeyo qaarkood socdaan qaarna dhamaadeen tabcan dugsiyada badankoodu way dhamaadeen kuwa sare waa lagu bartaa weeraan dhammaan degmooyinka inay yeeshaan dugsi sare in dhinaca tayada waxbarashada channelo ardayda ay adeegsan karaan xilligii covid kale in la sameeyo sida channelka macalinka kale dib in hadda loo qorayo curriculumki deegaankeena manhajkiin dib loo qorayo oo ah markii ugu horeysay ee Soomaali ahaan inagu aan qoranayno runtii waxyaalaha waxqabadka ee xagga tayada iyo tiradaba soo kordhay dhanka waxbarashada weeyaan waxa cadeyn waa ahmiyadda waxbarashada la siiyay in miisaaniyadda marka la isku daro tacliinta sare iyo waxbarashada iyo xafiiska waxbarashada ay hadda gaarayso in ka badan 1 bilyan oo bir halka markii aan imaneynay ay ahayd 105 milyan guud ahaan lacagta waxbarashada loo hayaa marka ahmiyad ballaaran ee waxbarashada la siiyay way muuqataa tirada ardayda ee soo qalin jabinaysa dugsiga galaasyada 8aad 10aad iyo 12aadna si ballaaran bay u koreen runtii oo la arki karaa dhinaca caafimaadka waxa wax weyn laga qabtay ismaha xarumaha health centerska oo ilaa 40 ku dhawaad health center la dhisay muddadii 3 sano ahayd ilaa 11 hospitaalna siyaalo kala duwan qaar cusub qaar ballaarin ah iyo qaar darajadooda kor loo qaaday primary iyo kor loo qaaday general laga dhigay inay iyagana lagu guuleystay wax badankooda ay dhamaadeen qaarkoodna hadda ay bilaha soo socda gabagabay doonaan waxa kale oo lagu guuleystay in la soo iibiyo 135 ambulance oo runtii wax weyn ka bedelay adeegida gaar ahaan hooyooyinka ay dhibaatada badan ku haysatay meelaha jidadka fiican aan lahayn ee miyiga ah marka ay fooshu qabato ama dhalmada ay imanayaan kale dhammaan degmooyinkana la wada gaarsiiyay waxaad ogtahay in oxygen plant ama oxygen warshad oxygen soo saarta maalinkii 100 xabo magaalada Jiga laga sameeyay taasina baahida xilliga covid kaliya ma aha baahida dadka bukaanka ay u qabaan oxygen-ta wax weyn ka tarayso walow ayna ku filayn laakiin bilow fiican ay tahay marka isbedel ballaaran oo dhinaca mashaariicda oo waxbarashada caafimaadka kuwaas ka mid ah dhanka biyaha runtii marka laga tago ceelal aad u fara badan oo ka badan Sodoniyo oo la qoday muddadii 3 sano ahayd waxa biyo gelin dhameystiran loo sameeyay magaalada Guday waxa iyana socda biyo gelintii magaalada Jijiga dhagax buur wardheer ugu yaraan 15 magaalada biyo gelintooda way dhamaatay magaalada yar oo Shilaabi iyo kuwa Idashaali iyo Adogeyd iyo Xamari ay ka tirsan yihiin biyo gelintooda way dhamaadeen marka biyo gelintana in biyo gelin macna leh oo dadka meelaha ay ku badan yihiin ee magaalooyinka maadaama hadda kor biyo gelin la sameeyay ay miiga u badnaayeen dalaa qaarkoodna ayna shaqeynba in magaalooyinka dad ku badan yihiin biyo gelin laga sameeyo xoogga la saaray dhanka jidadka waxa lagu guuleystay in wadooyin fara badan oo laami ah magaalooyin Kenya laga fuliyo Jijiga kamida Guday baa kamida dhagax buur baa kamida kuwa laamiyada laga sameeyay qabr dahar oo aan la bilaabin laakiin iyadana loo qabtay laakiin waxa ka sii muhiimsan heer federaal in laamiyo aad u fara badan oo 22 bilyan lacag gaaraysa deegaankeena runtii loo soo dhiciyay oo ay yihiin kuwa wax badan ka bedeli doona nolosha jidadka Chayga waxa iyaguna wax badan laga qabtay jidadka Chayga miiga iyadoo ugu yaraan 2,000 kilomitir ku dhawaad oo jidadii ay socdaan heerar kala duwan ay marayaan beeraha iyo xoolaha iyo lafta isbedel ballaaran baa laga sameeyay oo wax soo saarkii deegaanka kor u kacay laakiin waxaan jecelahay inaan xooga saaro arinta shaqo abuurka oo ugu yaraan dad gaaraya 35,000 qof lagu daray structure-ka heerka deegaan ee dawliga uu qaatay taasoo shaqo abuur ballaaran waxa kale oo lagu guuleystay in la nidaamiyo qaabkii shaqada loo heliyay iyadoo oo imtixaanaad in lagu xiro shahaadooyin in lagu xiro laga dhigay runtii waa arrin aan laga beeshay karin in qaabka shaqaaleyntu hadda ay aad uga fiican tahay qaabka shaqaaleynta ay ahaan jirtay iyadoo imtixaanaad loo galo boosaska iyadoo la soo dejiyo cadcadaan fara badan laga muujiyay shaqaaleynta waxa kale oo lagu guuleystay in dadkii forgery watay
shahaadooyinka forgery watay ama dadkii goostiga ahaa ee mushaar qaadanaya ku jiray systemka in laga guro laga dagaalamo xoolo dhaqaale fara badan halka ku baxayna la save gareeyo dhinaca la dagaalanka forgery-ga taas waxay keentay in hadda dadku ay aaminaan in wax lagu helayo horumarka uu ku xiran yahay uu yahay waxbarasho oo fikir guud oo isbedel u yimaado oo aan lagu xisaabtamin shahaado forgery iyo xiriir madax aad la leedahay kaliya in shaqo lagu helayo ee lagu xisaabtamo shahaadada hadii sax ahayn waxba ma helaysid marka waa in wax barataa marka runtii taas oo keentay dad badan inay xooga saaraan inay wax bartaan waxaas dhanka horumarka wixii ka hagaagay weeyaan waxa kale oo lagu guuleystay in la xoreeyo suuqa ganacsiga oo hadda kor gacanta ugu jiray dad iyo kooban suuqaas oo maadaama hadda laga saaray monopoly-ga lagu haystay oo cid walba ay si xor u tartamayso adeegiina uu fiicnaaday marka laga tago maciishada hadda qaaliyooday iyadoo doolarku isbedelka ku yimid awgeedna awal hore halkii aan ugu nimid meel ka hooseysa maciishadu ay ahayd oo in badan runtii dadku ay maciishad fara badan iyo jaban ay helayeen walow hadda ay u baahan tahay in dadaal dheeraad la muujiyo si sicir bararka la socdo korkaca qiimaha doolarka si wax looga qabto marka arrimahaas oo dhan runtii waxaan oran karnaa waxay ahaayeen arrimo muddo 3 sano gudahood lagu qabtay waxa barbar socota in nidaamkii dawliga ahaa bayaanadii loo baahnaa qaab muxuu ahaayay awaamirtii lagu kala soconayay kala awoodsiintii hay'adaha dawladda baarlamaanka hadday tahay hay'adaha fulinta hadday tahay hay'adaha muxuu ahaayay garsoorka in bilow fiican laga bilaabay in fikir in sareynta sharciga lagu shaqeeyo oo laga guuro nidaamkii talada deegaanka oo dhan hal qof ay ku soo ururisay waxa laga qabtay shaqo balaaran baan oran karnaa marka inahaas oo dhan waa inahan isleenahay waan soo kordhinay waxa kale oo lagu guuleystay in maamulada la dhisay ay noqdaan si doon dadka u dhigaan laakiin inay noqdaan maamulo dadka deegaanka ku nool kulli iska dhex arkaan oo inclusive nidaam dawli ah oo inclusive ah oo ilaa heer degmo ciladihiisa uu keensan karaa marka wixii la yiraahdo waa in inclusive laga dhigo oo lagu saleeyo dadka meelaha jooga in la qanciyo nusqaantiisa uu wadan karaa laakiin guud ahaan in qanac siyaasadeed oo balaaran deegaanka uu ka jiro iyadana runtii waxyaalaha soo kordhay kamid tahay marka dhammaan waxyaalahaas oo dhan waxa noo soo kordhay weeye amniga iyo xorriyadda iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo muxuu ahaayay xorriyadda ganacsiga oo keentay dhammaantiin in deegaanku maanta uu noqdo deegaan si balaaran shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan didiilo ay ugu muuqato waxyaalahaas wax soo kordhay weeye ma oran karaa waa tahay madaxweyne maxay tahay hadda ka madaxweyne ahaan kula quman in aad sii xoojisaan amaba in la xoojiyo waqti xaadirkan aad isleedahay way u baahan tahay way dabcan 3 sanadood waxaa muhiim ah inaad ogaano muddo sanad ku dhawaada waxaa waqtigu badan ku lumay dib u dhiskii hay'adihii maamulka dib u habeyntii xisbiga oo ilaa 10 bilood ay nagu qaadatay in xisbiga dib loo habeeyo oo dadyo isfahmi kara ay maaragtay soo galaan xiriirka kala duwana marka taa marka laga tago caqabadahaas guud iyo kuwa guud dalka ku yimid oo iyagu laftooda saameyn taban ku leh qaabkaan u shaqeynayno colaadahan soo kordhay isbedelkii guud dhibaatooyinkii la socday waxaas oo dhani runtii dhibaatooyin badan bay keenayaan oo sidii loo rabay inaan wax u socon ka keeni kara laakiin waxaan oran karnaa still waxyaalo u baahan in xoog la saaro oo la sii adkeeyo waxa kamid ah dhismaha institutionska nidaamka dawliga in la sii adkeeyo oo sharci iyo qawaaniintu ay shaqeeyaan waxa kale oo sixid u baahan nidaamka iibka kale dadku hadalhayn badan oo inta badan marka laga hadlayo iyadoo musuqa guud marka laga hadlayo aan ognahay deegaanka in wax badan laga qabtay oo ayna suurtagal ahaateen intaasoo mashaariic iyo intaasoo mushaar korada iyo intaasoo shaqaale oo la shaqaaleynayo iyo intaasoo ciidan oo la qorayo 3 jibaar baan ku ciidanka oo mushaarka loo kordhinayo haddii lacagtii deegaanka si fiican inta loo maamulo aan la gelin ayna suurtagal ahaateen marka natiijada ka muuqata horumarka shaqaaleynta iyo mushaar korarka la sameeyo uu muujinayo in wax weyn laga qabtay haddana fikir ahaan qaabka iibka qandaraasyada kale goldolooyin badan baa ka jira kuwa in la soco marka waxyaalaha hadda ay shacabku filayaan runtii si guudna ay musuq ugu tilmaamaan markay hadlayaan laakiin markaad sii eegno cabashada ugu badan ay la xiriirto taa weeyaan in nidaamka iibka la soxo cadaan badan in laga muujiyo arrintaas waa waxyaalaha dawladda hadda u yaala xukuumadda hadda ay qorsheysan tahay sanadka laga bilaabo inaan isbedel balaaran ka sameeyno
waxa kale oo iyaduna u baahan in xoogga la saaro adeeg bixinta walow adeeg bixinta hadda shacabku ay ka hadlayaan wax laga tartasiinayo aan la garanayn oo hadda ka hor xafiisyo adeeg bixiya ayna jiri jirin xafiisyo loo adeegsado in sirta dadka lagu soo ogaado mucaarid iyo muxaafid lagu kala saaro baa jiri jiray xafiis shacab intuu xafiis tago adeeg u doonan jiray iyadoon jirin hadda ka hor haddana guud ahaan in aan taamul masiya laga dhigan adeeg bixinta meel walba la hagaajiyo mas'uuliyiin badan oo shaqooyinku ay hayaan sida ay rabaan u qabanayaan cabashooyinka ka imanayaan cabjiid badan ay qaadanayso in la saxna waa arrimo jira weeyaan marka isla xisaabtan degdega in la keeno oo isuwanaanta laga baxo iyadoo xeelaha shacabka ay tabayaan ayay ka mid tahay sareynta sharciga in la adkeeyo oo waxaa jirta hadda ka hor maadaama dadka aad loo dhibi jiray xukuumaddu waxay qaadatay go'aan ah in wax walba faraha laga qaado tii waxay keentay in amnigii shacabku khatar galo in meelaha qaarkood isku dhacyo qabaa'il laga abaabulo isku dhacyada qabaa'il in kuwa wax dilaya la eryado mooye kuwii abaabulayay iyo siyaasiyiintii gacanta kula jirtay in waxba laga qabo in siyaalo ka baxsan sifo sharci ama tartan ah marar badan dadka loogu abaabulo in isbedelo la samaynayo taana aan xisaabtanka loo baahnaa laga samayn jileec xagga dadku ay dareemayaan way jirtaan taa in la adkeeyana iyaduna waa arrimaha muhiimka ah shacabku ay runtii ka soo noqonaya weeye waxaa kale oo shacabka aad uga hadlayaan midnimada ummadda in la xoojiyo iyadoo aragtiyadan ururada mucaaridkii ay wataan ay keentay in dareen ah uu jiro in qabyaaladii xoogeysatay in kala qaybsanaantii xoogeysatay marka dhab ahaan u sii egtana aadan arkaynin wax noocaas oo muuqda ee aad arkayso tartan siyaasadeed oo socda ururka mucaaridka ah tartamaya iyo dawlad la tartamaysa in is eryadaan oo ay saxaafadda isku dhaliilaan dhaqan tartan oo siyaasadeed meel kasta ka jira weeyaan marka innaga dhulkeena maadaama aan loo baranin oo la kala aaminsanaan jiray sawir ah inuu soo baxo kala qaybsanaan iyo isryasho badan inay jirto waa meesha taalla in aragtida qabyaalada inay badato kale waxaan aaminsanahay in deegaankan xilliga la aasaasay ilaa hadda marka la eego mar walba qabyaalada jiri jirtay qabyaaladna siyaasadda Soomaaliya aan laga waayin marka dhab loo hadlo laakiin hadda xorriyadda soo kordhay ay keenayso in banaanka la fadhiyo oo cid waliba reerka naga loo jeeda wixii soo kordhaba reerka naga loo jeeda reehel maadaama la yiri reeheba ay iska tahay wax maaragtay hadda social media han soo kordhiyay oo iclaamaad wixii aan laakiin ahayn arrinta in hoos inta loo eego haddii ay jiraan ficilo ama xagga xukuumadda ka jira ama xagga ururada mucaaradka ka jira oo keeni kara in bulshadii isnaca u dhex yimaado in hoos loo eego arrimaha iyaguna hadda aan gudiyo u saarnay ee baaritaanka aan ku jirno weeye waxaan aad u jecelnahay dadkanagu inay midoobaan oo hadaf guud lagu midoobo iyo tartanka siyaasaddu sidiisa yahay waxyaalaha noocaas oo kale ana dadaal badan baa hadda ka socda waxa kale oo u baahan in maaragtay la sii xoojiyo ka qaybgalka hay'adaha federaalka iyo xaq aan ku leenahay ama ha noqdaan kuwa ka shaqeeya deegaanka ama ha noqdaan kuwa heer qaran jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo aqoon leh oo shaqooyinka federaalka geli kara jira marka inaan xukuumad ahaan u guntano in halkan aan lagu koobnaane dalka maadaama ka tirsannahay wax far badan naga maqan in la doono runtii iyadoo caqabadaha ay ka jiraan xaggeena laftigeeda oo dadkii wax bartay badankooda kil ay isku nabayaan deegaanka maadaama duruufaha nolosha ay kala duwan tahay taasina waxyaalaha shacabku ay xoogga saarayaan inta badan ay ka hadlayaan ayay ka mid tahay waxyaalaha shacabku ka hadlayaan kulligood ma khaldana dareenada jira marka guud ahaan in wixii hagaagsanna la sii wado oo la hagaajiyo wixii dhinaana hor loo qaado waxa kale oo iyaduna ka mid ah waxyaalaha in la hagaajiyo ay tahay xilliga ay qaadanayaan mashaariicdu inkastoo mashaariic badan la qabanayo haddana tayada iyo xilliga ay qaadanayaan laftigeeda in hoos in loo eego waxay la xidhiidhaa arrintii qandaras bixinta in hore u sheegay in la isku xidho oo taana bal sidii iyada oo la eegayo wixii uu dana shacabka in qaabab cusub oo lagu hubsado in mashaariicdan qaabka loo qorsheynayo iyo qaabka loo fulinayo ay noqoto qaab xilli kooban mashaariic ay ku dhamaanayaan awal hore xanuuno maaragtay ama khaladaad aan dhaxlay oo ay ahayd in mashruuc 200 milyan ku baxayso 10 milyan loo qabto oo 5 sano iska socdo haddii isku yahay oo annana sanadkii u horreeyay iyo kii labaad nala koosiday baa jira ilaa hadda daba socda qayb ahaan marka waxay ahayd mashaariic badan oo dhaxlay oo aan joojin karin oo ay ahayd inaan sii wadno iyo kuwa badan oo kale oo cusbaa in la qabta ahayd maadaama shacabku in badan codsi ay soo gudbinayeen aan u arkeen in laga jawaabayn ama suleeltirka dhanka mashaariicdu ay ahayd in wax laga qabto waxyaalo noocaas oo fara badan oo nala kulmay baa jira kuwaana in la saxo waa muhiim waxa kale oo iyaduna muhiima in hogaaminta tayada hogaaminta kor loo qaado hadday tahay tu degmo hadday tahay tu gobol hadday tahay tu heer kalil
meelaha qaarkood goldolooyin badan oo hogaaminta maanta jirta inkastoo hogaamin aqooniyahana ay tahay hogaamin shacabka aan dhibaataynin oo maanta aadan maqlaynin gudoomiye gobol ama ku degmo oo cabasho shacab inuu dhibaato u geystay laga cabanayo in cabasho la'aantu ayna ku qancine wax qabadkana intoos loo galo hogaamin ummadii cadaalad u samaynaysa hogaamin jahayn karta hogaamin isku filan oo shaqooyinkii degmooyinka ayna gobolku qabanayn kuwii gobolkana aan lagu qabanayn heer deegaan in la sameeyo maadaama hadda aad muddo dhaqankii ahaa in shaqada la dhaadhiciyo inkastoo awaamirta xagga kore ka dhacday in haddana weli sugitaan ay jirto qofkii shaqadu qaban lahaa uu sugayo in lagala qabto meel kale waxyaalahaasna waxyaalaha u baahan in la saxo maadaama ka jawaabidda baahiyaha shacabka ay saameyn ku leedahay marka waxyaalahaas oo dhan waxaan isleeyahay waxyaalaha noo dhiman weeye arrimahan hor yaalla hadda dabcan ee kale waa arrinta doorashada oo jiitantay deegaankeenna sababo la xiriira muxuu ahaa cabashooyinka asxaabta ka yimid iyo diyaargarowga golaha doorashooyinka dalka ka yimid arrinta doorashooyinka in si fiican loo maareeyo iyo arrinta galbeedka city oo runtii xukuumaddu dadaal badan ay ka geysatay goldolooyin jiray awgeedna dhibaatooyin ay u yimaadeen marka inahaas haddii la maareeyo waxaan isleeyahay deegaanku meel fiican buu taagan yahay maanta markaad eegto dalka guud ahaan xagga horumarka xagga nabadgelyada xagga xorriyadda xagga dhaqdhaqaaqa siyaasadda xagga ganacsiga runtii waxaan odhan karnaa tusaale fiican baan yaan ka nahay dalka ahaan meelaha ugu fiican baan nahay ugu roon baan nahay waxaasina waxaan anagu sheeganayno hogaamin ahaan oo kulli wada keenay maahe waxyaalo wadciga isbedelay uu keenay waxyaalo shacabkanu ay qayb ahaan keeneen maadaama ay ka daaleen colaadihii waxyaalo ururada mucaaradku ay ku ammaanan yihiin maadaama ay doorteen waddo nabadgelyo inay ku halgamaan ayaa keenay baan leenahay marka guud ahaan waxaan isleeyahay waxa la qabtay wax fiican weeye waxa dhimanina wax mar walba in laga shaqeeyo u baahan weeyaan halkaasaan marayna waan isleeyahay hagaag mudane madaxweyne aad baa u mahadsan tahay ugu dambeyn 22 cisho kadib waxaa loo dareeri doonaa doorashadii deegaanka ka xukuumad ahaan iyo ka madaxweyne ahaan maxaad fariin u diraysaa shacabka deegaanka haddii ay tahay dhinaca nabadgelyada iyo xasilloonidaba inay sidoo kale ilaaliyaan sidaad sheegtay hadda waxaynu isu diyaarinayaa doorashooyinkaas sida caadiga ah doorasho walba oo ka dhacda afrika waa la isku qabsadaa waa lagu murmaa innaga tiintaa kama duwanaan doonto asxaabaha tartamaya mucaaradku cabashooyin ay gudbiyeen baa jira annagoon raalli ka ahayn in doorashada la joojiyey waan u hoggaansanay haddadan laftigeeda guddiga doorashooyinka wixii ay rabaan inbay go'aan gaaraan meelo badan oon ku dhalisannahay guddiga doorashooyinka qaabkay wax u wadeen iyo xogta ay ka duulayaan way jiraan iyo fahamkooda la xidhiidha guud ahaan deegaanka laakiin haddana sharciga iyo qawaaniintii markaa la dhigtay ahaa annaga idin garsoorayna waan ogolaanay marka ururada mucaaradka waxaan ugu baaqaynaa inay iyaguna u hoggaansamaan sharciga iyo nidaamka waxay jecel yihiin sharci maaha waxay jecel yihiin gaar maaha wixii markaa loogu taliyo lasoo dhigo inay ogolaadaan waan kula talin lahaa si maaragtay dhibaatooyin ayna u iman dhinaca kale dadka xildhibaanada ay shacabku soo dooranayaan inay si xor u soo doortaan oo xitaa haddii wax khaldameen wixii ay dareensan yihiin inay khaldamaan in codbixinta lagu sixi karaan aaminsanahay taana mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowladda guddiga doorashooyinka ururada mucaaradka odayaasha intoo dhanba inaan hubinno dadka lasoo dooranaya inay yihiin dad actually shacabka dooranaya ay ku qanacsan yihiin innaga xaggeenna qaabka loo codeeya waa qaab aan garanayno waa qaab qabaa'il waa la garanayaa qofku meesha uu ka soo jeedo iyo meesha looga codeynayo dareenka laga qabo marka taas haddii xoogga la saaro furfuraansho laga sameeyo waxaan aaminsanahay in sawir fiican oo mateli kara afkaaraha kala duwan ee deegaanku ay ka soo bixi doonto doorashada marka waxaan kula dardaarmayaa kow amniga in la ilaaliyo laba in shuruucda iyo qawaaniinta loo hoggaansamo oo aan la isku dayin in la carqaladeeyo marka ay ku saacidi waayaan oo aan la isku dayin ilaa taas waan kula dardaarmayaa ta kale waxaa jira xoogag TPLF-ta dagaaladii ay soo qaaday dhiirigelin ay siisay oo waxay u badan yihiin dadkii dambiilayaasha ahaa oo dadka dembiga ka galay oo qaarkood maanta ay ku dhiiradeen inay yidhaahdaan dembiba ma dhicin qaarkood maadaama dembigii ay sameeyeen aan lagula xisaabtamin maadaama xagga goldoloolin ay ka dhacday inay dareemaan inaan dembiba dhicin qaarkood ku dhiiradeen dhaqdhaqaaqyo ay wadaan baa jira runtii
arrintaas waxaan isleeyahay xukuumadduna dhaliisheeda way qaadanaysaa ururada mucaaradka oo onalf ugu horeysan dhaliisheeda way qaadanayaan waxa weeye markay onalf diiday qayb ka mid inay tiraahdo nidaamkii hore dembiyu galay xilqaris ay gashay waxay maanta timid in kuwii dembiilayaasha ahaa iyagu ay yidhaahdaan wixii dembi ka dhacay deegaanka oo dhan onalf baa ka mas-uulahayd heerkaa inay gaadhaan taariikhda yaa qori doonta iska wareysan doonaa inay sax ahayd in tooshka lagu shidi waayo dadkii dembiilayaasha inaan ahayn arrinta hadda bilaabatay baa kuwa ka ah haddaan la joojinin halkaas way kasii soconaysaa in lagu murmoba dembiga ka dhacay deegaanka yaa lahaa in lagu murmo kolley xoogagii halgamayay markii dambena u arkay inay aamusaan inay dowr tahay ayaa qayb weyn oo dembiga kule qaba xukuumadduna dhinaca kale dhinacna waxaa lagu lahaa dadka saamaxa oo waxaa la lahaa dadka saamaxa cuqdad baad leedihiin argoos baad wadaan dhinaca waxaa lagu eedeeyaa tallaabo mayna qaadin oo dadka dembiilayaasha suuqay socdaan waa lagu eedeeyaa waa laba arrimood oo u baahan in la balance garayo runtii laakiin xoogagii noocaas ahaa waxaad moodaa hanqaltaag siyaasadeed iyo is-abaabul inay bilaabeen iyagoo u arka TPLF inay rijo siyaasadeed ay u hayso kuwaas in gacan adag lagu qaban doono inaan haba yaraatay wax jixinja aan loo gelin inay ogaadaan shacabku inay ogaadaan kaalinta kaga aadan ee ah inay la shaqeeyaan hay'adaha nabadgelyada iyo hay'adaha cadaaladda oo xogta hay'adaha ay keenaan waan kala dardaarmi lahaa ugu dambeyn waxaan iyaduna dardaaran ka bixin lahaa guud ahaan deegaankan aan ku noolay Soomaalida marka laga tago kala duwanaanshaha aragtida iyo siyaasaddan hadda socota isku mid baanahay marka qofkaad Soomaalida waxay tiraahdaa aasha qofkaad jeclaana aasha jeclo qofkaad nicina aasha nacba leeyahay annagana ha noqotee in xad ay yeelato nacaybka siyaasaddu oo dadkan siyaasadaha isku diidani ay u arkaan in hal deegaan ay leeyihiin inay haddad yihiin in waxaan la isku hayaa uu yahay uun sidee wax loo maamulaa ma sidana fiican mise sidana fiican afkaar in la isku hayo laakiin in inta la karayo waxyaalo ummadda kala geynaya oo dhibaatooyin inaan la isu geysan in laga shaqeeyo taa macnaheedu ma aha dowladdu wax ma xidhi karto oo ninkii la xidhaaba dembi baa laga galay ninkii dowladda wax ka sheegaaba dembi buu galay ma aha macnaheedu waxaan ka hadlayaa guud ahaan dhaqan soo jiray oo muddooyinkii u dambeeyey sii xoogeystay oo ahaa siyaasadeenna inay qayb ka mid aflagaado noqoto wax anaga shakhsiyan Mustafa dhibaya ma aniga shakhsiyan mas'uul markaad noqoto indu baan qaatay laaq dulbeeliya wax walba oo cid kasta oo ku soo dhacda yaa loo haynaya in fact madaxda wax ka sheegtaankii aflagaadaba inay ahayn baa laga yaabaa laakiin dhaqan guud oo siyaasadeenna ku dhex jiro aflagaadaha kaas in laga baxo oo qaab yar xadaarada oo dhaliisha xukuumadda dhaliisha ururada mucaaradka dhaliisha bulshada laftigeeda in la isdhaliisho bulsho aan isdhaliilaynin oo goldolooyinkeeda iyadoo aan hoos u eegaynin bulsho tadawur samayn karta maaha in qaab noocaas loo gudbo waan jeclaan lahayn taana waxaan u jeclaan lahayn deegaankanaga inuu maadaama oo xanuuno badan soo mareen dil xasuuq bahdil muxuu ahaa waxaasoo dhan inta laga gudbo inaan noqono ummad vibrant oo bulsho vibrant oo doodayso oo murmayso oo muxuu ahaa siyaalo kala duwan afkaarta u sheeganaysa laakiin aan ka gudbaynin xintaabkii dhaqankeena iyo diinteena inaan aragno waan jeclaan lahayn inay iman doontana waan ku rajo weynaa haddana runtii isbeddel ballaaran baa dhanka laftiga ka jira 3 sano ka hor wixii ka dhici jiray deegaankeena markay noqoto marka qof afkaar lagu diidan yahay iyo maanta wax jira oo kala duwan yahay maanta qof mas'uulaha la leeyahay waa tuug waa sidan waa qabiiliste xaggan u maray waxa noocaas ay ku soo ururtay laakiin ugu yaraan dadka aan mas'uuliyadda haynin way ka badbaadin ma oran karnaa marka loo eego wixii jiri jiray arrinta in la soo xoojiyo waan jeclaan lahayn oo siyaasaddu ay noqoto wax ka dhaxeeya siyaasiyiinta shacabkuna akhlaaqiyadka guud inuu isagu noqdo ka garsooraya ee taasina way fiican tahay taasina way xun tahay taas waxaan ugu darayaa maadaama oo maalin dhaweydna aan arkay ururada mucaaradka qaarkood oo hadlay oo annaga nalaha inay nacayaan muxuu ahaa raalli baan ka nahay runtii anagu meel aan ku cayno ma garanayno inaad afkaarta siyaasadeed ee ururadaas aad dhaliisho oo tiraahdo waxa ay waxaas ku khaldan yihiin talabada ay qabaan khalad weeyaan fikirka inaad tiraahdo cayma sida anaga naloo sheegay weey inaan caynana diyaar uma nihin cidna inaan qayb ka noqono aflagaadooyinka anagu aan ka digayno raalli kama nihin laakiin waxaan isleenahay
wixii keeni kara shakhsiyan in maartay dhaqan noocaas u yimaado cid kasta ka taxadarto cidda hawsha wada ka taxadarto dardaaran isaguna weeye siyaasad xadaarad leh aan ku dhaqano aan oran lahayn oo dhaliisheedina la sheegayo dad aan taa diyaar u ahayn way jiraan oo dabcan ay dan ugu jirin waxaan ka sheekaynayno qadiyadan guud inay hagaagto iyo ummadan inay noqoto uma shaqeynayso maaha inaan iska riyoonayno oo aaminsanahay aruur inta la soo tooso dadka dhan inay saa noqonayno dadka markii la leeynayay kuwa la leeynayay baa jira ummadan maanta bari hadii la laayaan kuwa soo raacaya kuwa leeyahay baa jira kuwa TPLF u xiisisan baa jira soo raacaan dadka laayaan kuwa qoomiyad kale haday xoogeystaan inay hoos galaan ay dadka ku laayaan rabaa jira waxa oo dhan waan fahansanay laakiin aqlabiyada guud iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo dadka hogaamiya ra'yiga bulshadu inay iyagu noqdaan kuwaas takoora inay noqdaan oo ay kaalinta ciyaaraan ayaan kula dardaarmi lahaa wad maasantay